isuduwaha wasaaradda diinta ee qaafta gobolka Hawdal Sheekh Xamuud Ladiif Axmed ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusay 15 arday oo dhameystay xifdiga Quraanka Kariimka oo ka aflaxay macaahidda Nuurul Cilmi ee magaalada Boorama. Ardaydaasi oo ahaa dufcadii shanaad ee ka baxda macaahiddaasi. Xafladani ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay culimo oo diin, waalidiin iyo marti sharaf kale oo lagu maamuusay munaasabadani oo ka qabsoontay xarunta macaahidda Nuurul Cilmi. Ugu horreynna waxaa hadalka qaatay Sheekh Cabdullaahi Xuseen Cumar oo ah maamulaha ee macaahidda Nuurul Cilmi waxana uu ka sheekeeyay asaaskii macaahidda iyo ardaydani ka baxaysa. Waxaa runtii aan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo macaahidda iyo taariikhda ay soo mareen. Waxaynu asaasnay 2012 waana dafcadii shanaad ee Quraanka ka dhameysata macaahidda Nuurul Cilmi. Waa farxad aad u qiimo badan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa aynu ku weynaynayno. waxaan oran lahaa waalidiinta dadaalkii iyo juhdigii aad ubadka aad waxa weeyaan marka la garab taagnaydeen halkiisii ka sii wada. waxay qaateen ardaydaasi muftaaxii cilmiga ayay qaateen. inta kadib waxaa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah culimada diinkii ka soo qayb galay xafladani iyagoona hadallo isugu jira duco iyo dardaaran u jeediyay ardaydani dhameysatay xifdiga Quraanka Kariimka sidoo kalena bogaadiyay maamulka macaahidda Nuurul Cilmi ayaa waxay yiraahdeen كلي مناسبة ما أنت الله قبتي قيبتي شناد معاهد نور العلمي جزاهم الله خير بان لأن هاي إلهي أيني نيها جيو خير كاسيات ما أنت ما شاء الله بندكتين وحنا أدي هذا مركز ودعينا معلمين تي مامورك مركزك يرد ما بدتك هوش سوق بن قابي وحنا لنا مركز معلمتنا لقد عيسو مركز كواد وحنو هنبلييننا أرضي كتابك إلهي سبحانه وتعالى حنبارتي oo ah wax la barto wixii ugu qiimaha badnaa mar hadaad quraankii barateen oo maanta culimo xafaadul quraan aad noqoteen quraanka aad xafideen yaan xujo idin ku noqonine xujaha idin noqday idinka iyo waalidiintiinaba waayo qofka wanaagsan quraanka si fiican u barta ilaahina subxaanahu wa ta'aala ku anfaco waalidiintiisana qabriga loogu hadiyeeyaa macaahidda Nuurul Cilmi sidoodaba markii aanu asaasnay waxaan la bilaabmay khadka loo yaqaano online arday baa ka dhameystiraysa online ka dhameystiraya wali arday runtii aad baan ugu faraxsanahay kulleeyta ardaydaasi aad ka qiimo badan leh quraankii ka mishay dhameystirtay waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku anfaco waalidka juhdiga iyo dadaalka ku soo bixiyayna waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka idinku daro. ugu dambeyn waxaa munaasabadaasi hadalka soo gabagabeeyay isuduwaha wasaaradda diinta ee qaafta gobolka Hawdal Sheekh Xamuud Ladiif Axmed. halkaasaad maanta aad joogtiin waa darajo weyn waana idigu hambalyeynaa ka wasaaradahan diinta waana idigu garab taaganahay waana idigu faraxsanahay waana idigu faanana maxaa yeelay wasaaradda diintu dadka ku faanaysa waa dadka dadka uga garab joogsanaysa waa kuwa marka hambalyo ilaahayna kitaabka quraanka haydigu anfo xifdigana halka ka sii wada waxbarashadana halkaan ka wada wadno dhamaanna waa amalina wada saaran inaan gudano yar iyo weyn hooyo waalid ard inaan isku kaalmaysano macadka Nuurul Cilmi جزاك الله كبركة دفعتي شنات يدال ما تمرهين يا صارتين أنا قلنا مرة كان نقولون ومد إلهي اللهم هديه وأنا إذا ما هنغنا ما هذا النور العلمي gabagabadii waxaa madashaasi abaalmarinaya shahaadooyin lagu guddoonsiiyay 15 arday dhameystay xifdiga Quraanka Kariimka. waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.